Shalom, shalom walaalayaal, walaalaha masiixiyiinta ee quduusiinta ah. Shalom, nabadi ha idinla jirto dhammaantiin meel walba aad joogtaan. Walaalayaal, caawa waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo barnaamij aan kaga hadlaayo waa maxay salvation ama waa maxay badbaado. Ayaan caawa barnaamijkan uga hadlayaa. Walaalayaal, waad maqasheen inuu masiixu yahay badbaadiye. Marka waa maxay badbaadadaas? Maxaanse ugu baahannahay badbaado? Waynu ognahay masiixiyadu waa badbaado, samata bixin iyo furasho laynaga soo furtay dembigii aadanuhu ka dhaxlay Xaawo iyo Aadan oo ah kuwii aan ka soo farcannay. Dembigaas iyo cawaaqibtiisa oo keentay dhimasho iyo Ilaah ka fogaansho. Marka dhimashadaas ma aha dhimasho qofku dhimanayo. Waxaynu ognahay inaynu isticmaalno kelmadaha ah hebel wuu iga dhintay oo dembi buu iga galay, hebel iyo hebel way kala dhinteen, anigii hebel waan kala dhimanay. Taasoo ah xiriir dambe ma yeelanayno, xiriirkeeni wuu kala go'ayo, qofkaas dembi buu iga galay oo xiriir dambe ma yeelanayno weeyaan macnaha. Marka dhimashadan taasoo kale u taagan tahay. Marka walaalayaal, masiixa dhimashadiisa iyo sara kicidiisa ayaa inaga maydhay dembigaas oo inaga badbaadisay dembigaas dhimashada leh ee Ilaah inaga fogeynayay. Markaan muslimka ahayn waxaan maqli jirnay in Xaawo iyo Aadan dambaabeen iyagoo jannada ku dhex nool oo shaydaankii uu duufsaday oo ay warkiisii maqleen oo sidaasna ay Ilaahay amarkiisii ku jabiyeen oo ay cunaan geedkii uu Ilaahay yiraahdo cunina. Saasna jannada looga soo saaray. oo waxaan oran jirnay haddii aysan Xaawo iyo Aadan dambaabi lahayn oo aysan Ilaahay ku dambaabi lahayn, saacadan jannada ayaan ku jiri lahayn oo waxaan cunno iyo waxaan cabno maanan xoogsaneen oo dambi maanan lahaaneen oo saxara iyo kaadi maanan lahaaneen ayaan oran jirnay. Taasna waxay inaga tusaysaa dhankaas dhaxalka dembigii Xaawo iyo Aadan iyo saameyntu inagu yeeshay. Waxayna inoo bayaaninaysaa markii beertii Aadan laga soo saaray in Ilaahay ay sidaas uga fogaadeen iyaga iyo farcankoodiiba. Xaawo iyo Aadan iyo farcankoodiiba sidaas ayay Ilaah uga fogaadeen oo farcankiina halkaas ka dhaxlay. Halka dhimashada masiixa ay u noqotay aadanaha kafaaro gudka dembiga aadanaha, taasoo aan ka baranay kitaabka quduuska ah oo lagu faahfaahiyay qoraaladii Bawlos iyo Injiilka dhexdiisa. Bawlos wuxuu arkay kuwa aaminka ah oo lagu soo furtay ka qayb qaadashada dhimashada iyo sara kicidda masiixa. Masiixiyiinta hore waxay isu tixgelin jireen inay ka qayb qaateen axdiga cusub ee Ilaah ku furtay Yuhuudda iyo kuwa aan Yuhuudda ahaynba, iyada oo loo marayo dhimashadii allabariga iyo sara kiciddii ka dambeysay ee Ciise Masiix. Ka qayb qaadashada dhimashada iyo sara kicidda Ciise Masiix waxaa laga wadaa qofku markuu aqbalo oo qorto in masiixu yahay badbaadiyihiisa, uu la dhintay lana sara kacay oo uu noqday abuur cusub oo uu ku helayo qofku dib u dhalashada, taas oo ka dhigaysa qof cusub oonan dembi dhan aanan lahayn. Waxaa kaloo qofku helayaa markuu masiixa aqbalo oo qorto hadiyadii Ilaahay aadanaha u soo diray oo ah masiixa, oo qofkii aqbalaa uu nolosha weligeed ah uu helayo oo hadiyad u helayo inuu noqdo ilmihii Ilaah oo aad helaysid xiriir toos ah oo aad Ilaahay la yeelatid oo aad helayso nolosha weligeed ah oo laga wado markaad dhimatid naftaadu Ilaahay ayay u tagaysaa oo nala jiraysaa weligeed ilaa laga gaaro maalinta masiixu soo laabanayo. Jirkaana waa la duugayaa, waa la asturayaa, ciidaasaa lagu duugayaa, waa la asturayaa oo waa qolof. Halkaasna marka waxaan ka arkaynaa markay naftu Ilaahay u tagto, Ilaahay ay la jirto, wax cadaabul qabri la yiraahdo inaysan jirin oo nafta Ilaahay la jirtaa jirkiina carradaasaa la isaga asturay. Marka cadaabul qabri ma jiro, su'aal qabri la isku weydiinayo ma jirto, masas qabriga kugu cunayaan ma jiraan, mana arkaysid, waayo nafta Ilaahay ayay la jirtaa oo Ilaahay bay u tagaysaa, Ilaahayna jannadu joogaa. Marka halkaas waxaan ka baranaynaa inaysan jirin sheekadii ahayd marka qabriga lagu galiyo oo lagu duugo
oo qodadku maarta ay carrada kugu gadiyaan naftu way kugu soo noqonaysaa oo xay ayaa noqonaysaa oo shanqarta u dambaysa qofka kaasii tagaya u dambeeya dadkii ku duugay waad maqlaysaa oo kadibna waad ka daba qaylinaysaa laakiin cid ku maqlaysaa ma jirto kadibna halkaas aad ku jiri doontaa mugdigaas qabrigaas mugdiga ah baad ku dhex jiraysaa oo waxaa kugu imaanaya laba malag oo su'aalo ku weydiinaya oo haddii su'aalaha aad ku dhacdidna way ku ciqaabayaan oo way ku budaynayaan oo way ku dilayaan kadibna waxay kuu furayaan qabriga darishad naarta ah oo holaca naartu kaaga soo gelayo iyo darishad ay masas kaaga soo gelayaan qabrigana waa la isku soo dhaweynayaa labada feerood ilaa ay isdhaafaan qabriga lagu cayrinaya marka taas ma jirto waxaysan u jirin waxa weeyaan horta qabrigu waa carro yar oo dhowr mitir ah waan waliba adduunkii kaliya waynu ognahay dhulkaa la qodaa qashin baa lagu ridaa waa la isaga duugaa dhulkaa la qodaa bulaacadaha laga qodaa waa la isaga bulaacadahaas waa lagu duugaa jirkuna waa saasoo kale dhulkaas waxbuu asturaa weli waa adduunkii boosanaarka arkaysid waa adduunkii marka qofka hadduu dhinto adduunka ma joogaayo ilaahay buu u tagayaa ilaahayna waynu ogahay inuu jannada joogusan meel xun joogin marka halkaa waxaynu ka baranaynaa inaysan jirin wax la qadaa cadaabu qabri la yiraahdo aysan jirin godkaas qabrigaasna uu yahay disposal ama meel wax lagu asturo oo jirkaas lagu asturayo oo adduunkii weli qofku maarta jirkii la iska asturay laakiin naftii ilaahay u tagaysaa ma garanaysaa marka walaalayaal kuwii ciise masiix aqbalay ciise masiix ay la dhinteen ciise masiix bay la soo sara kaceen waxay heleen nolosha weligeed ah waxay heleen hadiyadii ciise masiix ay ku noqonayeen ilmihii ilaah marka walaalayaal waxaan dhihi lahaa reereeya oo baraara oo farxa waayo waxaa tihiin kuwa ilaahay jecel yahay waxaa tihiin carruurta ilaahay ma aha inuu ilaahay ina dhalay oo intuu reer yeeshay xaas yeeshay laakiin xagga ruuxda ayuu ilaahay naga dhalay oo jacayl oo inoo qabaa sida waalidku awlaadiisa u jecel yahay kale oo kale buu ilaahay inoo jecel yahay maadaama aan ereygiisii quduuska ahaa oo uu inoo soo diray aynu aqbalnay imagine ilaahay wuxuu ina leeyahay ereygayga aqbala haddaad ereygayga aqbasheen anigana waa aqbasheen ilaahayna ereygiisa weligiis wuu soo diri jiray marba wuxuu soo dhiibi jiray maxaa la yiraahdaa nebi iyo boqor iyo qof uu isagu doortay laakiin aakhir isla ereygiisii uu soo diri jiray isagii laftarkiisii oo jirbina aadan wato inoo soo diray kii alle iyo kii aqbalaana wuxuu helayaa hadiyadaasoo la socota ereygaas oo ereygu inoo keenay oo ah dib u dhalashada oo ah ilmihii ilaah inaan noqono oo ah inaan nolosha weligeed helno marka waxaynu ka koreynaa sheekooyinka ah cadaabul qabri baa jira waxaasaan ka koreynaa magaceenu jannada waa ku wen yahay magaceenu buugga jannadu ku qoran yahay walaalayaal waxaan idin leeyahay farxa oo reereeya baan idin leeyahay farxa oo reereeya waa ilaahay mar walba wuxuu idin leeyahay ha cabsanina idinma siinin ruux cabsata ma fahamteen marka walaalayaal mar walba reereeya mar walba farxa waxaan idinka tegayaa walaalayaal nabad iyo jacayl barakooba meel walba aad joogtaan nabadda rabbigu ha idinla jirta ayaan idin leeyahay barakooba walaalayaal